koox haween ah oo ka kooban 75 qof ayaa maalin kasta oo ka mid ah 20kii sano ee la soo dhaafay waxay ilaalinayeen dhul keymo ah oo cabirkiisu uu gaarayo 75 hektar oo ku yaala gobolka Odisha ee dalka Hindiya. sanadkii 1999 gobolkan dhaca bariga Hindiya ee la yiraahdo Odisha waxaa ku dhuftay duufaan xoogan oo burburisay guryaha dadka, waxayna dad badan ka dhigtay cunno la'aan dhowr maalin. laakiin dadka ku nool tuulada yar ee la yiraahdo Gundalba waxay xaqiiqsadeen in ay ku badbaadeen keymaha weyn. tan iyo xilligaasi wixii ka dambeeyay tuulada dadka ku nool ayaa go'aansaday inay awood kasta ku difaacaan keymaha, iyagoo ragga ku mashquulsan dib u dhiska tuulada burburtay ayaa mas'uuliyadda ilaalinta keymaha waxaa dusha saartay koox haween ah. waxay durba dhiseen koox roonda ka samaysa gudaha keymaha, waxayna baacsanayeen kooxaha jaraya geedaha 20kii sano ee la soo dhaafay. Hindiya iyo dhammaan caalamku waxay ka warqabaan duufaanta, laakiin waxaan xaqiiqsanay in keenta lagu badbaadayo, waxaana ballan qaadnay inaan ilaalin doono, ayay tiri Carolata Biswal oo 52 jir ah lana hadashay wargeys wadankaasi ka soo baxa. sanadkii 2001 in ka badan 70 haween ah ayaa sameeyay guddi ilaaliyo keymaha oo laga soo xulay guri kasta oo tuuladaasi ku yaala.